nahay oo ku yaala duleedka magaalada Dhagaxbuur dad kaliya kuma aasna waxa sidoo kale halkan ku aasan neef geela 192 sano ay aasan tahay oo halkan soo meesha ay ku aasan tahay qarnigii 19aad halkaas ay ku jirtaa hay intoo la qoday yaa in loo sameeyay sida binaadamkii oo kale hay waa la geliyay inta lagu loo soo laabay aayar iyo luqunta kabdiina waa lagu daday midna waa loo goglay midna gurida laga daday eelkii baa lagu dhoobay halkan bay ku jirtaa qabrigan aad idin muuqda waxa ku aasan hasha lagu magacaabo Garawo oo ah hal caan ka ahayd deegaankan aan hadda ku sugannahay ee Dhagaxbuur markii ay hashu dhimatay sidii qof bini'aadan ah ayaa loo kafmay loo axmay isla markaana waxa loo qaday xabaal iyo eel qabrigan aad arkaysaan ayaanay ku jirtaa wixii la furay ninkani dhaarta ogaadeenka oo codka fiitooda u dhiganto inaan saaleelo yeelin inaan taloobay saddex dalaqodiga tahay waa fiitooda dawladaha qarbiga oo kale waa fiitooda Soomaalida ogaadeen adeer Maxamed Cabdi Israad waxa uu kamid yahay odayaasha ku dhaqan deegaanka Garawo oo duleedka magaalada Dhagaxbuur ah waxa uu iga warramayaa taariikhda ay hashan leedahay hashan Garawo la oran jiray geelana mayna la mid ahayn midabka geelana waxay ahayd midabka geelabka loo yaqaan oo geel oo dhan ugu fiican ayay ahayd wadaadkii lahaa oo wuxuu ahaa nin Maxamed Subeera reer Saaqa reer Harun buu ahaa min reedood reer Harun ka buu ahaa magaciisa waxa la oran jiray Shiil Cismaan Ciid shiilinkaarna uu ku magac dheeraa oo naan isbaahay marka hasha wuxuu wadaadku ku jeclaaday uu geelka ka jeclaaday caanaha badan iyo qorshayo kale oo geela kaga bedelayd marka ay foolato way dhaqaaqi jirtay lama soo celin jirin sidaas bay isaga socon rag qoriyo wata daba socon meeshay doonto kolkay ku dhashaa yaa la deyn halka lama qaadayo ilmaheeda in la qaado lama ogola kolku ilmuhu socdo yaa la soo kaxayn 40 nin oo qoriyo wadata yaa kabtan ka raacdo iidoor dhexdii bay ku dhashay iidoor la istilayo farta kuwa way hubeysan yihiin 40 kaanin kolkay fiidkii tahay kolbay maali jireen kolkay habeen barkii tahayna kolbay maali jireen oo way deeqi jirtay aroortii markay tahayna kolbay maali jireen oo 40 kaba way deeqi jirtay barqinkii cadeedu markay 5 saac tahay xilli ama 6 saac xilli qadaha marbay maali jireen oo way deeqi jirtay laakiin geel kale la mid ma yahayn marka wax badan oo laga og yahay ma jirtaayo ma meel kale ka timid mise geel caadiga ah bay ka tirsanayd ma geel caadiga ah bay ka dhashay laakiin waxay ka timid qoodheed kolkii hore cawliyahan bay ka timid awr cawliyahan ka yimid baa dhalay xagga iyo bulaxa iyo xagga ay ka timid qoodheed marka hashu marka ay ka maagto ilmaheeda inuu xigsinta uu nuuga ay damacdo waxay bixin jirtay wax la yiraahdo reen oo guuxa kolkay in badan tiraahday muddo ilaa 20 daqiiqo ay reento ayay sida gaariga markay iyadoo guuxaysa kici jirto bay oran jirtay maxaan ka ognahay markii ay hashu dambe ay dhimatay maxaa sababay in sidii qof bini'aadana inta loo kafmo la ahmo oo halkan lagu aaso hashu markii ay dhimatay geela waxa ku dhacay cudur la yiraahdo gorar duuf oo sanka iyo dhiig iyo duuf ka daadin jiray marka geel badan buu laayay marka hashu cudurkaas dilay halkan bay fadhiisatay markuu muddo lala joogo oo la ilaalinayay in la gowraco uu diiday oo geela waa la gowracdaa waa la qashaa Shiil Cismaan uu diiday in la gowraco Garawo lama gowracayo buu abaal gudkeedii ma aha buu kolkii ay dhimatay wuxuu deedna yiri Garawo baktigeeda ma oranayno ka jeclaa meydkeeda halayla aasay marka waa la aasay waxa lagu kanfay wax la yiraahdo kabdo oo haweenku sameyn jireen waagii hore aqalada lagu dhisi jiro balbalaaran yaa lagu kanfay midna hoosta laga mariyay midna korka laga daday si ay ciidda uga celiso awr goora oo 8 jir iyo 7 jir midkoodana waa la gowracay halkan baa lagu qashay ragii aasayay baa cunay sidaas hasha lagu aasay marka Shiil Cismaan Ciid saas xoolaha hasha uga jeclaa marka waxaad leedahay sidii qof bini'aadan ah ayaa loo aasay oo intoo eel loo qaday iyo xabaal loo sameeyay la geliyay intoo la qoday yaa eel loo sameeyay sida bini'aadamkii oo kale waa la geliyay inta lagu loo soo laabay aayar iyo luqunta
kabdihiina waa lagu daday midna waa loo goglay midna guridaa lagaga daday eelkii baa lagu dhoobay halkan bay ku jirtaa qarniga la aasayna wuxuu ahaa qarnigii 19aad kun waxay aasan tahay 192 sano ay aasan tahay shiil cismaan ciid baana aasay hasha taariikhdeedu saasay ahayd garawana waxaa loogu bixiyey magaca garawe la yidhaah qarnigaasi wuxuu ahaa qarni horta xoolaha uun wax ka soo baxa lagu nool yahay raashin ma jirin wax dalka u soo dhoofi jiray ma jirin wax beeroo laga qodan jiray ma jirin wax kaloo la cunaa ma jirin waxa dhulka laga gurto ee dhulkeenna ka soo baxay midho iyo xabaga iyo xoolaha uun waxa ka soo baxay hilib iyo caano ah bas wax kale mula jirin aad iyo aad laakiin marka waxa laga keeni jiray kolkol galbeed xagga iyo galbeedoo inta awr la kaxaysta waxa la maqnaan jiray bil iyo 2 bilood iyo garow baa la keeni jiray marka arabiqiya marka waa sababta magacan garow ku baxay marka wuxuu ahaa wax aad dadka ula fiican lagu noolaan karo sidaa darteed buu magac ugu bixiyey Cismaan Shiil Cismaan laakiin markii shiil oo dabcan ninka hasha iskale markii uu go'aansaday in hashiisii uu sidii qof bini aadan u aaso dadkii deegaanku sidee bay uga falceliyeen walaalkii baa wuxuu go'aansaday isaguna wuu xilo furay ninkani dhaarta ogaadeenka oo codka fiitooda u dhiganto oo inaan saa leeyla yeelin inaan taloobay 3 dalaqood iga tahay waa fiitooda dawladaha qarbiga oo kale waa fiitooda Soomaalida ogaadeen marka uu dhaartay waa gartay ninkuna hadduu dhaarto ama qolo hiblaha leeyla laayay yiraah ama sidaa leeyla yiraah waa la yeeli jiray marka walaalkii baa wuxuu go'aansaday adna raggan aasay hasha wixii ay xabaalqodka ay cuni lahaayeen inaad adaad soo joojiso baa lagu aasi awr goolu marka soo kaxiyay awrkii baa la qashay awrkaas baa hasha lagu xabaalqoday sida bini aadamka loo aasay sida bini aadamka loo kanfay neefna mayna la ahayn ruux un bay la ahayd aad markaas saasay ahayd hasha taariikhdeeda waxaa jirta hadal hayn kale oo dadka deegaanku mararka qaarkood ay soo hadal qaadaan oo ah in taalo loo sameeyo hashaasi way jirtaa hay'ado badan iyo dawladuba dhowr goor bay noo yimaadeen marka meelahan taalo baanu ka dhisaynaa bay dhaheen waraysi badanna way naga qaateen marka qabrigeedani wuu ka weyn yahay soo maha qabriyada kale bini aadanka qabriyada wuu ka weyn yahay halkaasuu joogay halkanna wuxuu joogay qalaanqashahaa marka xoolihii dee dhagax dambana lama saarin xoolihii iska dulmaray iyo dhagaxiiba waxaa looga gulay xabaalahan kale aad iyo aad dadkan kale ee iyaguna xabaalaha ku aasan dabadeed baa lagu aasay miya mise say u kala horreeyeen waxay u kala horreeyeen isku qarni maaha xabaalaha waxa weeyaan ugu horreyntii 77 dagaalkii Soomaaliya Itoobiya baa dad lagu aasay ugu horreysay ka dambowna waa lagu aasay laakiin waagii hore hasha kaliya un baahayd oo xabaal qumano halkaa laga arkay bay ahayd oo dhagaxii lahoo geesaskani waxaa waa geesaskii lagu qotomiyey 4 dhinac lagaga qotomiyey eega kan baleeg uu dhidban yahay marka halkan bay ku jirtaa eelkii halkan buu ahaa saasay ahaydoo tuqaasaa dee hasha lahaa saana u jeclaa Tell us that.